السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada saaxiibayaal degalkeena Ciid Media. Haddaba inta aanan qisada caawa bilaabin, saaxiibayaal channelka subscribe soo dhaha, fiidiyoona like saara. Aynu u guda galna qisadeena caawa. Inantaan uu sawirkeeda idiin muuqdo waxaa lagu magacaabaa Nurhaan, ama magaca ay ku caanbaxday ee gabadhii Bursaciid. 2022 Nurhaan da'deedu waxa ay ahayd 20 jir. Waxa ayna baran jirtay Faculty of Art ama kulliyadda suugaanta. Nurhaan waxa ay ku noolayd magaalada Bursaciid. Waxa ayna la noolayd hooyadeed iyo laba wiil oo walaalaheed ah, kuwaasoo lagu kala magacaabo Axmed iyo Aadam. Nurhaan waxa ay ahayd gabar aad u qurux badan, isla markaana ragga oo dhan waxa ay jeclaayeen in ay mustaqbal la wadaagaan. Nurhaan iyo qoyskeedu waxa ay go'aansadeen in ay ka soo guuraan xaafadda ay horey u degganaayeen, waxayna u soo guureen xaafad cusub oo lagu magacaabo Fayruus. Nurhaan waxa ay isbarteen gabar lagu magacaabo Ibtisaam, gabadhaas oo ay jaar ahaayeen. Haddaba Nurhaan hooyadeed waxa ay ka shaqayn jirtay cusbitaal, badanaana waa ay ka maqnaan jirtay guriga. Nurhaan iyo hooyadeed xiriirka ka dhaxaya aad uma uusan wanaagsanayn, isla markaana waxaa jiri jiray khilaafaad labadooda u dhaxaya. Haddaba saaxiibayaal waxaa jiray wiil lagu magacaabi jiray Xuseen. Wiilkaasoo ay walaalo ahaayeen gabadhii lagu magacaabi jiray Ibtisaam. Xuseen waxa uu aad uga helay Nurhaan, waa uuna caashaqay. Haddaba Xuseen waxa uu go'aansaday inuu si toos ah ugu tago Nurhaan, isla markaana uu weydiisto lambarkeeda. Haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa uu si toos ah u wajahay Nurhaan, waxa uuna weydiiyey nambarkeeda. Laakiin Nurhaan arrinkaa aad ayay ula yaabtay, sababtoo ah Xuseen aad ayuu uga da'yaraa Nurhaan, oo markaa waxa uu jiray 15 sano, halka Nurhaan ay jidhay 20 sano, waxaana u dhaxeeyay farqi da' oo 5 sano ah. Ugu dambeyntiina Nurhaan waa ay u diiday lambarkeedii. Haddaba Xuseen waxa uu si fudud ula soo baxay moobilkiisa oo jeebka ugu jiray. Waxa uuna tusay Nurhaan sawirro, fiidiyow iyo codad uu ka duubay, iyada oo la taagan nin ay jaamacadda wada dhigtaan, isla markaana samaynaya ficilo aan wanaagsanayn. Waxa uuna ku handaday in uu fadeexayn doono haddii ay dalabkiisa diido. Nurhaan arrinkaa aad ayay uga naxday. Ugu dambeynna waa ay ogolaatay inay nambarka siiso. Haddaba halkaa waxa uu xiriir uga bilowday Nurhaan iyo Xuseen. Bilowgii hore xiriirkoodu kaliya waxa uu ku koobnaa wada hadal, isla markaana ma jirin wax kulan ah oo dhex maray ama ay kulmeen. Haddaba maalin maalmaha ka mid ah Nurhaan hooyadeed waxa ay si kedis ah u weyday furihii guriga ee albaabka hore. Hooyadii oo furihii raadinaysa ayaa si kedis ah waxa uu arkay Xuseen. Haddaba waa uu u yimi waxa uuna ku yidhi ma ku caawiyaa hooyo. Laakiin Nurhaan hooyadeed Daaliya waa ay la yaabtay arrinkaa. Waxa ayna isweydiisay sidee ayuu kaaga caawin karaa in aad gurigaaga gasho. Iyada oo la yaaban ayayna ugu jawaabtay haa. Haddaba Xuseen waxa uu la soo baxay bir yar, waxa uuna kaga furay albaabkii. Nurhaan hooyadeed waa ay u mahadcelisay Xuseen, waa uuna iska tegey. Nurhaan hooyadeed guriga ayay iska soo gashay. Waxa ayna u sheegtay dadkii guriga joogay oo dhan arrinkii iyo in Xuseen guriga bir uu ku soo furay. Saacaddu waa soconaysa, maalmuhuna waa ay isbedelayeen. Haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa Xuseen waxa uu ka dalbaday Nurhaan in uu ugu yimaado guriga. Nurhaanna arrinkaa waa ay ka ogolaatay. Haddaba Xuseen waxa uu yimi gurigii waqti aanay cidna joogin, oo Nurhaan oo kaliya ay joogto. Haddaba in muddo ah markii ay joogeen kadib, Xuseen waxa uu bilaabay in uu ku xadgudbo Nurhaan. Nurhaanna wax iska caabin ah ma aysan samayn, maadaama ay ka baqaysay in uu waalidkeed u sheego. Muddo kadib Xuseen guriga ayaa uu iska jiibsaday. Nurhaanna waa ay iska agseexatay. Kadib waxaa guriga si kedis ah ku timid Nurhaan hooyadeed. Waxa ayna aragtay Nurhaan iyo Xuseen oo isdhinac hurda. Nurhaan hooyadeed waa ay aamini weyday waxa ay indhaheedu qabteen. Aad ayayna ula yaabtay arrinkaa. Haddaba waxa ay gurigii ka saartay Xuseen. Nurhaanna waxa ay weydiisay sababta uu guriga u soo galay Xuseen, iyo waxa labadooda sariirta wada seexiyey. Nurhaan waxa ay ugu jawaabtay hooyadeed. Waxaana arkay Xuseen oo booliis eryanayaan. Kadibna guriga ayaan ka furay, booliiskii ayaana ka qariyey si aanay u qaban. Wax yar kadib ayaana arkay isaga oo sariirteeda hurda. Anna meel u dhow ayaan iska jiibsaday. Wax dhib ahna uma arkayn maadaama uu aad iiga da'yar yahay. Nurhaan hooyadeed kuma aysan qancin jawaabta gabadheedu siisay. Waxa ayna isweydiisay ma xiriir baa ka dhexeeya labadooda. Suurtagalse ma noqon karaa inuu xiriir dhex maro wiil ay 5 sano ka weyn tahay. Haddaba Nurhaan hooyadeed waxa ay ka fikirtay sidii ay u kala fogeyn lahayd labadooda. Ugu dambeyntiina waxa ay go'aansatay in ay gabadheeda Nurhaan u raadisay wiil, isla markaana ay u guuriso. Waxa ayna sidoo kale go'aansatay in ay gabadheeda ka xariso moobilka, isla markaana ay u diiday in ay bannaanka u baxdo. Arrinkaasina waxa uu aad u sii xumeeyay xiriirkii ka dhexeeya Nurhaan iyo waalidkeed. Dhanka kalena waxa uuba sii xoojiyay xiriirkii ka dhexeeya Nurhaan iyo Xuseen. Waxa ayna gaadhay heer ay Nurhaan marar kala duwan tagtay guriga Xuseen, waxaana la sheegaa in uu dhex maray xiriir jinsi ah. Haddaba Nurhaan hooyadeed waxa ay ka shakiday gabarnimada Nurhaan, waxa ayna ku hanjabi jirtay in ay fadeexadayn doonto haddii ay joojin weydo xiriirka kala dhexeeya Xuseen. Nurhaan xaaladii ayaa ku xumaatay maadaama uu saarnaa culays laba dhinac ah, oo dhanna uu waalidku ka cadaadinayay, dhanna Xuseen uu ka cadaadinayay. Ugu dambeyn hooyo Daaliya gabadheedii waa ay u guurisay.
Inkastoo arrinkaasi uusan cajabin Xuseen, haddana isaga iyo Nurhaan mar walba waa ay wada xiriirayeen. Ugu dambeynna Xuseen waxa uu go'aansaday inuu ka aarsado Nurhaan hooyadeed. Nurhaanna arrinkaa waa ay ku raacday maadaama ay aaminsanayd in hooyadeed maalin uun ay fadeexadayn doonto. Haddaba Nurhaan waxa ay go'aansatay in ay hooyadeed disho, iyada oo adeegsanaysa Xuseen. Waa ayna ka dhaadhicisay Xuseen in ay faldambiyeed dil ah geystaan. Xuseenna ma uusan fahmin Nurhaan dhagarteeda, waa uuna ku waafaqay arrinkaa. Haddaba waxa ay ka fakareen wakhtigii ay geysan lahaayeen dilka. Waxa ayna isku waafaqeen in wakhti guriga uu cidlo yahay ay la eegtaan maamada islamarkaana ay dilaan. Haddaba maalin maalmaha ka mid ah guriga ay degganayd Nurhaan hooyadeed ayaa albaabka laga soo garaacay, waxaana ka furtay albaabkii Nurhaan oo wakhtigaa guriga ku sugnayd. Haddaba waxaa si kedis ah u soo galay Xuseen oo wataa bud aad u weyn, kaasoo leh masaamiir. Waxa uuna si toos ah u weeraray hooyo Daaliya, budkii ayuuna si xoog ah ula dhacay. Haddaba markii ay isku dayday in ay iska difaacdo, Nurhaan ayaa biyo kulul dusha uga shubtay. Nurhaan iyo Xuseen oo faldambiyeedkii ku dhex jira ayaa albaabka waxaa si kedis ah u soo istaagay Aadam. Waxa uuna isku dayay in uu soo galo, laakiin Nurhaan ayaa albaabkii ku celisay, hoostana ka soo xidhay. Nurhaan iyo Xuseen waxa ay maamadii marsiiyeen ciqaab aad u daran, si fool xunna waa ay u dileen. Meydkeediina waxa ay ku rideen kiis weyn oo balaastik ka samaysan. Haddaba Nurhaan iyo Xuseen waxa ay go'aansadeen in ay meydka soo tuuraan. Haddaba markii ay soo qaadeen waxa ay arkeen inaysan si fudud waddada ula mari karin, islamarkaana waddadu ay jaam tahay. Nurhaan waxa ay go'aansatay in ay aabbaheed wacdo, kaasoo masaafo aad u fog u jiray. Waxa ayna u sheegtay in ay hooyadeed xanuunsanayso oo ay tabcaan tahay. Odaygii waxa uu soo wacay labadii wiil ee Axmed iyo Aadam. Waxa uuna ku yidhi hooyadiin waa ay xanuunsanaysaa ee qaada dhakhtarna geeya inta aan jidka ku soo jiro. Laakiin Axmed iyo Aadam markii ay guriga tageen waa ay waayeen hooyadood. Guriga oo dhanna cidlo ayuu ahaa. Kadib Nurhaan ayaa ay waceen, laakiin lambarkeedii waa uu dansanaa. Haddaba markiiba waxaa guriga soo gaaray Nurhaan aabbaheed. Waxa uuna bilaabay in uu raadiyo maamadii. Deriskii oo dhanna waa ay isku soo baxeen si ay ula raadiyaan maamada. Ugu dambeyntii maamadii waxaa laga helay suuliga dhexdiisa. Haddaba dadkii goobta jooga waxa ay waceen booliiska. Markii ay booliisku yimaadeenna waxa ay baaritaan ku sameeyeen masrixii uu dilku ka dhacay. Haddaba 2 saacadood kadib waxaa timi Nurhaan, iyada oo iska dhigaysa in ay hooyadeed raadinayso. Laakiin waxa la weydiiyey sababta ay moobaylka u dansatay. Waxayna ku jawaabtay in ay guriga ku ilowday. Booliiskii waxa ay go'aansadeen in dadka guriga ku nool oo dhan ay su'aalo weydiiyaan. Haddaba dambi baaristii markii ay maraysay Aadam, waxa uu sheegay in uu arkay Xuseen oo guriga sii galaya. Haddaba booliiskii waxa ay soo qabteen Xuseen. Baaritaan ayaana lagu bilaabay. Haddaba Xuseen marka ay booliisku su'aalaha weydiiyeen, isla markiiba waa uu qirtay wax walba. Waxa uuna sheegay in Nurhaan ay kiiska qayb ka ahayd. Kadibna Nurhaan ayaa la soo qabtay. Laakiin Nurhaan waa ay diiday in ay waxba qirato. Ugu dambeyntiina muddo kadib iyaduna wax kasta waa ay qiratay. Haddaba Nurhaan waxaa lagu xukumay xukun dil ah. Laakiin Xuseen da'diisu wakhtigaa waxa ay ahayd 15 sano. Qaanuunka dalka Masarna qofka ay da'diisu ka yartahay 18 sano waa qof aan qaangaar ahayn. Sidaa darteed Xuseen waxaa la geliyey xabsiga carruurta. Haddaba saaxiibayaal qisadeena caawa halkaas ayay noogu egtahay. Waadna mahadsantihiin. Fiidiyowgana like-ta ha ka ilaawina. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.